سعادة الوزير waxaan doonaynaa inaanu wax ka weydiino adigu markii xilkaad wareejinaysay waxaad hore u sheegtay inaanad dayn ku wareejinin dawladda sanadkii 2017 ha yeeshee maanta golaha wakiiladu waxa ay sheegeen dawladdu uu hogaamiyay madaxweyne biixi inay la ciirciirayso dayn idinku aad kaga tagteen arrintaasi maxaa soo celiyay xilliga maadaama hore u sheegtay arrintaasi bismillaahi raxmaani raxiim runtii waxa weeyaan dawladda Somaliland alxamdulillah waa January marka laga bilaabo ilaa December inta mushaharooyinka shaqaalaha la bixin kari waayay ama raashinka ciidanka ama shidaalada ama waxyaalaha deyn bay noqotaa laba bilood oo qura hadaan la bixin saddex bilood oo qura hadaan noqon milyan gaadha waan maalinta ka tagay November ayaan bixinay mushaharkii waan sheegay waxaan ku yiri raashinka ciidanka oo milyan iyo dheeraada bil walba laba bilood baa la leeyahay waan gartay deyn waxa laga qaadan karaa qof shiciba qofka shicibka milyanska laga qaadanaya ee joogaan anigu kama tibin ma ogi waxa deyn loo qaataa waxa weeyaan marka wasaaradda maaliyaddu ay deyn codsato ay deynta qaadato ee xisaabiyuhu og yahay ee deedna accountka 11 lagu shubo ee halka laga baxayo wasiirka horumarinta maaliyadda Saad Al-Shira waan wada hadalnay waxa weeyaan afkiisa kamu oran deyn baa wuxuu igu yiri anu afkayga kama oran documentska eeg baan ku yiri wixii su'aal iga baxday aroortan tigir soo goosanaya hadii jawaab la iga baxdo laakiin se waxaan ogahay lacagta inaana ka tagin lacagta deynta inay xukuumaddiina 80 milyan oo dollar aydan ka tagin ha lacagta dawladdu ay ka tagtaa waxa weeyaan waa lacag maaliyadda iyo u banka waa wax yar oo 4 milyan 5 milyan aan dhaafin wax shicib leeyahay waxa weeyaan December wixii ay ama shidaalina siiyeen ama ay raashinka ciidanka waxyaabaha haday wax ka soo baxaan ana diyaar u ahayn ka jawaabo way joogaan xisaabiyihii ila shaqeynayay way joogaan agaasimihii maamulka waxa weeyaan maaha lacagta dawladdu waxay moodayaan dadku lacag meel iska taalo la qaadanayo accountka 11 voucher baa kaga baxaa lacagtu laakiin hadduu qof shicib warqad iska sito uu yada lacag baan dawladda ku leeyahay in la hubsado oo dadka la weydiiyo oo wasiirku maaha ka day to day shaqada hayay dadkii hayay way fadhiyaan xisaabiyihii agaasimihii maamulka lacagta wuu joogaa banka dadkii joogay way joogaan marka waxa maba aha wax la isku waalay waa la wareysan karaa ma u malaynaysaa in golaha wakiiladu ay tahay documentiska ka tagteen halkay ka soo bixi kartaa way kula tahay 80 milyan waa lacag badan 80 milyan baa sheegtay milyan baa lacag badan runtii marka la sheego wadan ilaahay og yahay waxa soo gala marka waa lacag badan runtii oo aqliga galay marka waxay la tahay in xisaabiyihii iyo dadkii meesha joogay ana waa la hadli doonaa hadii la ii baahdana waan iman doonaa hadday de waxaan yihiin wax la leeyahay dad baa waraaqda iska sii waa la ogaan hadii wax la helo magaca wasaaradda maaliyadda ama wasiirka ama agaasimaha ama xisaabiya wixii ay saxeexeen waa deyn la igu leeyahay laakiin se ma aan noqon karto igu leeyahay 100,000 gartay 50,000 gartay nin yiri meel baan ceel ka qabo warqadii lacagtii baa badhaysiya badhna iga maqan yihiin meel baa xafiiska maqan yihiin waa la garan karaa inay soo jiitay waqti yar waxaasuna wax milyanada gaaraya maaha waxay la tahay in dib la isku noqdo oo aad wareysataan idinkuna qoladii joogay meesha laakiin si wasiirku bikul ixtiraam waa nin aanu han weyn oo garanaya in wasaaradda maaliyadda wax badan ka qaban karo wuxuu yiri afkayga kama soo bixin aad iyo aad baad mahadsan tahay wasiirkii hore wasaaradda maaliyadda Somaliland Marwe Samsam Cabdi Aadan oo telefishinka honkayba la hadashay iyadoo ku sugan magaalada Dubai waddanka Imaaraadka Carabta